haddaan nahay dhalinyarada uma daba fadhinayno qof dambe inuu noo masiirkeena go'aan nooga gaaro innaga masiirkeena go'aan ka gaarayna maadaama mustaqbalka ifaya ee soo socda cidda mas'uulka ka ah ama iskale ay tahay annaga ama aan nahay dadka milkiyadda dalkan iskale ee dhalinyarada tahay dalka Soomaaliyeed boqolkiiba 75 in ka badan waxa la yiraahdaa waa dhalinyaro guud ahaan dhalinyarada kaliya ma aha mid meesha halkan fadhisa ama beesha halkan fadhisa dhalinyarada guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay xilligiina la gaaray waa inaanan cid dambe aanan u daba fadhiisanin mas'uuliyadda iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan cid kastaaba meesha ay ka soo jeedo ama ay matasho tirka galabta halkan u joogno runtii ujeedkiisu wuxuu ahaa in dhalinta beesha halkan fadhisa inta halkan fadhisay inta maqanba ay iska xog wareystaan halka ay xaaladda guud ee dalka marayso iyo si gaar ahaaneed maamul dhisidda galmudug oo aan door muhiim ah ku leenahay haddaan nahay dhalinta halkan fadhisa iyo guud ahaan beeshaba galmudug waa maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaalida gaar ahaan dhalinta halkan fadhisa ay ku abtirsato waxaan is leeyahay xaq waxaan u leenahay inaan ka mid noqono cidda go'aanka iyo talada kale cidda ka tala bixinaysa habka dhismaha qaab dhismeedka iyo dowladda halkaas ka socota inaan qayb ka noqono walajeedka shirkuna wuxuu ahaa inaan isweydiino war door caankee ayaan ku leenahay haddaan nahay dhalinyarada halkan fadhisa ee ku abtirsata beesha aan ka soo dhawaajiyay waxaan is leeyahay xilliga hadda lagu jiro sida madaxda qaranka ay ka dhawaajisay inay tahay xilligii dhalinyaradu ay dalka badbaadin lahayd anagoo ka duulayna marka in ay maanta tahay roolkii anagoo aan lahayn iyo waqtigii nolol ka sugayay inaan u soo istaagno waxaan aad bogaadinayaa aan ku faraxsanahay in halkaan u wada fadhino inaan ka qayb qaadano hadda waxa miiska saaran ee ah dowlad dhisidda galmudug oo runtii meel wanaagsan marayso waxaan rabaa dhalinyaro in la dardaarmo dhalinyaro aan isku duubnaano aan qaadano roolka aan ku leenahay guud ahaan siyaasadda dalka gaar ahaan mid hadda miiska saaran ee dowlad dhisidda galmudug si loo gaaro horumar iyo barwaaqo iyo baraare sida doctorhan qaybo badan oo ka mid ah galmudug xilligan waxay ku jirtaa gacan cadow waxay u baahan tahay in la garab siiyo waxaan u maleynayaa cidda ay sugaysaa in cid kale ahayn waa dhalinyarada mid halkan fadhisa iyo midda ayaga ay matalayaan ee halkan ka maqan si loo gaaro horumarkaas xoreyntaas iyo inay dadkaasi ay helaan dowladnimo ay ku naaloodaan oo ay danahooda iyo ayahooda uga tashan karaan waxay ku xiran tahay sida annagu maanta isu xilqaamno ee halkan uga istaagno maanta waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay in aan ka mid noqono dadka bulshada Soomaaliyeed hogaamiya oo u noqda indhaha iyo aragga ay wax ku arkaan iyo fikirka ka qayb qaata waxa taagan hadda oo ragga qaar igu horeeyay soo qaadeen in aan ka qayb qaadano dadaalo wanaagsan oo laga sameeyay galmudug waan is leeyahay dadka halkan jooga way ku abtirsadaan oo meelaha deegaanadooda qayb ka mid ay tahay waxaan jeclaalahay marka inaan ku fikirno dadkaas dhibaataysan oo annaga naga mid ka ah si aan u badbaadi lahayn ay u heli lahaayeen waxbarasho caafimaad nolol wanaagsan inay istareexaan ay ka mid noqdaan bulshada Soomaaliyeed annaga mas'uuliyad naga saaran tahay waxaan idin sheegaa muddo 2 bilood ka hor ayaan aniga iyo group aan kamid ahay oo dhowr iyo 10 qofood 13 qofood inaan malaynayo ayaan waxaan tagnay Dhuuso Mareeb waxaan u tagnay ra'iisul wasaaraha dalka waxaan u tagnay marka inaan ugu mahad celino dadaalka uu sameeyay iyo inuu bulshada Soomaaliyeed aragtiyadii la heesto hore duqoobay laga gudbo loona gudbo aragti wanaagsan oo furfursan dalkan in la hormariyo ummadda Soomaaliyeedna wax cusub u bariyo u qaatay arintaas oo naga hadlay wuxuu yiraahday waxaan idin ka codsanaa ka dhalinyaro ahaan inaad ka qayb qaadataan mashruuca hadda ka socda galmudug oo ah dib u dhiska iyo galeelida iyo dawladnimada dib loo qaabaynayo waxa kale oo idin sheegaa uu yiraahday aniga shakhsiyan idin maliinta idin soo kaxeeyo ama kaala iyo diyaardan soo raaca meeshaan imaaday xaggan imaaday ximitaan qabto idin ma dhigi karo laakiin waxa la idinka rabaa adinka waxa la idinka rabaa inaad is abaabushaan ismideydaan soo diyaar gadoodaan marka waxaan idin sheegayaa ma ahan sidii hore ee haajirta arintu ma ahan diyaar madaxda dalka idin yihiin inay idin garab istaagaan in qof kasta oo dadaalkiisa ku soo baxo kuna soo muuqdo diyaar loo yahay in dhalinyaro aqoon-yahano u badan inay inta isku yimaadaan ka hadlaan masiirkooda hore looma arki jirin waa waxyaabaha hadda dowladda federaalka ee nagu soo kordhisay anigu warmahantii waxaan nolosheedii inta badan 14 sano qurbaa jiray hadda dalka waxaa ku suganahay 1 sano iyo bar
haddana inaan ku soo laabto waxaa igu dhiirigeliyey waa dowladda hadda jirta marka dowladda hadda jirto jaaniska ayna siinayso iyo sidii wax u wado iyo qaabka galmudug ku socdo nin walba meesha jooga ayaa mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay rumaantii waana fursad hadda oo noo qaali ah oo aan haysano waxa anaga iyo nafteedii iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanada halkan fadhiyo aan ku bogaadinayaa inaan fadhiga ka kacno aana cidna ku haleenin mustaqbalkanadii caruurtanadii iyo kan fog iyo kan haddaba waa inaan fadhiga ka kacnaa wax walba aan qabsan karna aan qabsanaa horena u socnaa waa mahadsantihiin marti sharafta isugu timido meeshan galabta ka soo qayb gashay barnaamijkan dhalinyarada beesha mursade ay ayahooda uga tashanayaan oo ku faraxsanahay intaanoo dhalinyaro aqoon-yahanaha oo u soo baxay mustaqbalkooda iyo sidii aayihii dalkooda ay ugu tashan lahaayeen isugu soo baxay inay meeshan isugu yimaadaan galmudug waxay u baahan tahay dhalinyaro samato bixiya oo xaaladda hadda sida ay tahay wax ka bedela waxaan rajaynayaa dhalinyaro inaan mataqaanaa mustaqbalkeenna aan ka tashan doono aan dhexda u xiran doono sidii waxyaabaha hadda socda aan hormuud ugu noqon lahayn maahan inaan dib u dhacno maahan inaan qof kale ku hadlayno maahan inaan oday dhaqameed ku hadlayno waa inaan annaga isxilqaanaa aan dhahnaa odaga haddii uu ku talagalo inuu annaga gadaal intana mariyo oo dad kale keeno inaan annaga dhahnaa adee raalli ah xilligaas waa laga soo tegay xilligan waa xilligeennii maanta waxaan jeclahay dhalinyaradu inaan fadhiga ka wada kacno waa doorka aan leenahay ayna taagan tahay annaga inaan maanta fadhiga ka kacno dhammaan dhalinyarada beesha ee halkan fadhido iyo kuwa maqanba baaq aan u dirayo waaye waxaan bogaadinayaa in allaala intii maanta u tartami karta doorka meeshaas ka taagan inay u tartanto soo haddii aan aniga ka qayb galo haddaan waayo walaalkii aan u istaagayo waxaa laga yaabaa fikir aniga markaas